lahayd oo aad bas u raaci lahayd oo aad ku rafaadi lahayd buu kuu fududeeyaa waxaad u badan dee caalamka oo dhanna maxaad u malaynaysa isbeddel weyn oo naqla nawciyaba ayaa ka yimiday 20 sano soo socda waxaa la sahminayaa 3 shay inay nolosha bani aadamka wax weyn ka bedeli doonaan shayga koobaad waa waxaa la yidhaahdaa daaqatul khadraa green energy-ga in loo guuri doono shidaalkan iyo dabkan la dhalinayo iyo jiinadan in laga guuri doono loo guuri doono dadku inuu soo saaro energy ama uu soo saaro tamar ka imanaysa bii'ada oo aan wax dhibaataa bii'ada ku keenin ama ha laga soo saaro hubka kala duwan sida nuclearka iyo wixii lamida ama ha laga soo saaro dadku waxyaabaha ay isticmaalayaan solar systemka iyo cadceedda ama ha laga soo saaro gudaafada sida wadamo badan ba imka ay sameeyeen waxa lagu wadaa bani aadamku inuu ka maarmo marka energy-gan shidaalka laga soo saaray taasi maxay dhali doontaa totally waxa meesha ka bixi doona waxa la yiraahdo geerashiyada waxa meesha ka bixi doona warshadaha leydhka waxa meesha ka bixi doona kaalmaha shidaalka waxa meesha ka bixi doona waxyaabo fara badan oo ku dhisan leydhka iyo energy-ga lagu soo saarayo awoodda shidaalka lagu soo saarayo dadku waxaa la sahaminaya inay gaari doonaan sida qof waliba telefoon jeeb hadda uu ugu haysto ee guri walba uu telefoon u yaaliyo intaasoo telefoon u yaalaan guri waliba inuu sidiisa u soo saaro energy kadibna uu isticmaalo wixii soo hadhana uu ka iibiyo ama uu ku celiyo dowladda ama xarunta dhexe ee dadka energy-ga u maamulaysa daaqal khadraa shayga koobaad oo ah energy-gu isbeddelka intaa leeg buu caalamka ka samayn doonaa 20 sano kadib oo hadda maalgelintiisii iyo oo reeri qaar badan oo kamid ah wadamadu ay fuliyeenba shayga labaad oo isaguna saamaynta weyn imikana adduunyada ku keenay kuna socda waa AI-ga weey artificial intelligence-ga oo isaguna ah maskaxda macmalka ah ee la sameeyay oo qaar badan oo kamid ah ay adeegsadaan isaguna thawro iyo kacdoon aan caadi ahayn buu ku sameynayaa caalamkii macluumaadka iyo wixii la adeegsanayay oo dhan hadday noqoto xogtii iyo data analysis-kii hadday noqoto project management-nadii maamuladii lagu sameynayay mashaariicda hadday noqoto video editing-kii iyo wixii la sameynayay hadday noqoto qoraaladii la sameynayay taqriiraadkii iyo xogihii la diyaarinayay caafimaadkii laftiisii baa la sahaminayaa in robot galo oo imikadan ay galaanbe oo haddadan ay qaliina sameeyaan taxliilka uu sameynayo robotku uu kugu sameynayo wuu ka daqiiqsan yahay beelankii bani aadamku kugu sameynayay oo waxay soo wadaan tadbiiqyo aad ku neefsanayso ama applicationno aad saaraysa dhiigaaga yarna waanad ku neefsanaysaa cabirka jirkaaga iyo wadnahaaga aad saaraysaa markiiba wuxuu ku siinayaa xog ama data la isku halayn karo 75% oo ka sarreysa tii bani aadamka imikana qaarkood waa jirjiraan dee feershano cusub oo aada u sarreeyaana maalinba maalinta ka dambaysa ay soo socdaan baxthiyadii la sameynayay qoraaladii la sameynayay adduunyadii waxaasoo dhanna waxaa hawada kala baxaya artificial intelligence-ga oo haddaana dee maanta lasii qabsan oonad maskaxda furin oonad waxbaran oonad soconin oonad ama ubadkaaga ku tarbiyadayn waa lagu kala dhaqaaqayaa beritole shayga saddexaad oo isaguna saamaynta weyn dadka noloshooda ku yeelan doonaa waa waxa weeye waa lacagaha cryptocurrency-ga ama alcumulaat almushafara waa lacagaha internetka dhexdiisa lagu isticmaalo fahamka haddaan u soo dhaweeyo waa sida saadka iyo dahabka iyo lacagahan kale aynu isticmaalle ee soomaalidu ay isku diraan sida lacagaha la isugu diro iyagoo casri oo ka waaweyn weeyaan oo waxyaabo badan dee kaga duwan oo kaga horeeya oo meelo badan oo aanay ku gaadhayn lacagaheena yaryar aynu isticmaalayna ee localka ayaanay gaadhaynin oo lacaga la qoto oo la soo saaro oo lacaga marba program iyo barnaamij lagu dhisaa in badanna dhalinyaradu runtii way soo weydiiyaan xaaraanteeda iyo xalaasheeda cryptocurrency-gu waa laga ganacsan karaa waxay u baahan tahay dhowr qodob koowaad inaad garanaysa adigu xirfadda haddaad garanaynin dad lacag loo dhiidhiibo la igu shaqeeya caalamka kama jirtay hal go-in talabaadna waa inaad iska hubiso mashruuca lagu dhisay lacagahan kala duwan ee bitcoin iyo ethereum iyo lacagahan kala duwan mashaariic ama projects bay dabada ku hayaan oo ninkii berigii dhintay maraykanka ee madowga ahaa I can't breathe oran jiray ma neefsan karayo lacag bay ku dhiseen baan filaya oo mashruuciisa ama wax kastoo trending oo caalamka qabsada mashaariic iyo projects iyo lacag lagu dhisay marka mararka qaar waxa dhacday nimankan islaam ma aha inay waxyaabo xaaraana ama khamri ama drugs ama balaayo ku dhisaan sida darteed waa inaad iska hubiso lacagtu project ay ku dhisan tahay waa noocma inta haddaad fahmayso wixiina xirfad u leedahay dhib ma laha inaad ka faa'iidaysato inaad ka ganacsato iyadana waxaa la sahaminayaa in lacagaha adduunka saameyn weyn ku yeelan doonto bedeli doonto ay noqon doonto nidaamyada la adeegsanayo waxa aan ka warramaynaa waa boqolkiiba hal marka loo eego isbeddelka xoogga leh
caalamku hadda wajahayo ku socdo haddaba adiga maxaa kaala gudboon ma waxaa kaala gudboon sida aad maqaaxida u fadhido sida aad hebel iyo heblaaye u hadal hayso sida aad dad unuga sheekaynayso aanad waxbaba noloshaada kusoo kordhinaynin sida aad hebel baa sidan yidhi iyo heblaaya sidan tiri iyo heblaaya muxuu heliyo hebel muxuu helay sida u leedahay in gabalku kuugu dumo oo dadku kaa tagaan mise nolosha inaad wax kusoo kordhiso dabcan cilmigu horumarku wacyigaagood dhistaa waa taraakumi nina maalin iskama dhismo maalintii haddaad siiso waktigaaga 30 saacad ka mida khalaas saacad ka mida inta kale kuba ciyaaro hal saac haddaad ugu talagasho wacyigaaga inaad kobciso 6 bilood gudaheeda waxaad dareemi doontaa isbeddel aan inaba caadi ahayn hal saac oo keliya waktigaaga sii luuqadaha baro halkaa ka bilow luuqada carabiga baro ingiliishka baro waxaa kalead baran karaysaba baro waxaad barataa inaad joogtayso casharada aad qaadanayso waxaad barataa courses inaad qaadato waxyaabahanan ka warramayna ka hadlaya ubadkaaga wax bartay iska ilaali inaad ula dhaqanto ama wax kuu baranaya hadda adigu sidaada inaad ula dhaqanto oo wax xilligaaga shaqaynaya aad istiraahda bar waxaan xilligaaga shaqaynaya aad isleedahay bar waa laga tegayaa noloshu wax kale u guuraysaa marka waa inaad u sahamiso waxyaabaha noloshu ay u guurayso sida hadday tahay programmingka oo kale waxaa la saaminaya waxyaabaha noloshu u guuraysa inuu yahay programmingku xisaabaadka oo kale qofku inuu tob ku noqdo ku fiicnaado inuu managementiga iyo project managementiga iyo waxyaabaha maamulidooda ku fiicnaado hadhow tolo way sii horumarayaan un xirfadaha noocaasi waxyaabaha inaad markaa barto oo kala taliso oo naftaada ku dhisto nafta ubadkaaga ku dhisto waxaan oo dhan markaa aad kor u qaado ayaabaa la doonaya marka iyay noqonin walaalayaal qof wacyigiisu uu hooseeyo adduun iyo aakhiraba noqonaya waxaad noqotaa wacyigiisu qof uu sarreeyo adduun iyo aakhiraba sidee baynu u dhisaynaa majaalkee baynu ka dhisaynaa adduunyo iyo aakhiraan ku wareernay sheekhow ma kitaabadii baan dhiganaa ma wax kalaan dhiganaa xiisadaha dambe aynu ku eegi doonaa aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu